halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaarkood iyo internetka oo ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. arooryo suuban idilkiin baa khayaartana dhegaysataa waa 24 Juun saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 7 oo gowa. wararkan idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah Mareykanka oo ka baxay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. siyaasadda Trump ee qoysaska soo galootiga lagu kala qaarayo aad loo dhaleeceeyay siday tahay haatan xaaladdu. qaxooti caruura ka dilaacay meelaha qaarkood taasoo markii dambe kaleeto in meel qaadaba xataa loo waayay oo ilmihii la isugu geeyo meelo horey u ahaan jirtay dukaamaha waaweyn laga adeegto sida Walmart oo kale ama xariiq ciidan ku yaala xuduudka kale. qaxooti Soomaali oo ka tagay Kaakumo oo haddana ku noqday. wararkii ciyaarahan iyaguna meesha ka maqnayn. soo saaraha barnaamijku waa Xasan Geelaan oo Axmed Nagaashiina waan idin la socodsiinayaa. subax wanaagsan saaxiibayaal. waa tahay qodobadaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyaan bal marka hore dhegaystayaal warkii dunida iyo Xasan Haybe. Xasan mahadsanid Axmed. waxaa sii kordhaya rabitaanka uu sanadka Mareykanku ku doonayo meelmarinta sharci cusub oo lagu soo afjaraya kala qaybinta waalidka soo galootiga iyo carruurtooda. xubno sarsare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu hadda doonayo inuu saxiixo sharci kasta oo Koongareesku uu meel mariyo oo ku saabsan soo galootiga. waxaa aad loo cambaareeyey dalka Mareykanka oo isaga baxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay isagoo ku eedeeyay dhexdhexaadnimo la'aan iyo munaafaqad. balse madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in aysan ahayn wakhtigii uu Mareykanku dib u guran lahaa. midowda Yurub ayaa isna sheegay in Mareykanku uu wax u dhimayo haldoonnimadii ilaalinta xuquuqda aadanaha. General Electric oo ka mid ah shirkadaha ugu caansan dalka Mareykanka ayaa laga saaray shaxda suuqa saamiyada ugu weyn ee Dow Jones. shirkadan oo uu wax ka aasaasay Thomas Edison oo ah nin hal abuur ah ayaa lagu bedelay shirkadda farmasiyada ee Walgreens Boost Alliance. madaxa hay-adda nukliyeerka ee dalka Iiraan ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo dalalka Yurub ay waajib ku tahay inay xoojiyaan heshiiskii nukliyeerka ee lala gaaray 2015. Cali Akbar Salixi ayaa go'aankii uu dhowaan Mareykanku kaga baxay heshiiskaasi ku tilmaamay mid wax burburinaya. hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee dalka Nicaragua ayaa sheegtay in ugu yaraan 3 ruux la dilay iyadoo laamaha ammaanka iyo maleeshiyaha dowladda taageersan ay qaadeen jidgooyooyin ay dhigeen dad ku mudaaharaadayay magaalada Masaya. isniintii ayuu burburay wadahadaladii u socday dowladda iyo mucaaradka. ugu dambeynna wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Kang Kyung-woo ayaa sheegay in cunaqabataynta saaran Kuuriyada Waqooyi ay sii jiri doonto tan iyo inta laga xaqiijinayo in ay si dhammaystiran uga tanaasushay hubkeeda nukliyeerka. warkii dunidana waa naga intaas Axmed. mahadsanid Haybe. waa tahay aan ku bilaabay dhegaystayaal sidii aad warkaba ku maqlayseen. waxaa golaha Koongareeska ee Mareykanka ka sii xoogaysanaya dadaalka lagu doonayo in lagu meel mariyo sharci cusub oo meesha ka saari doona siyaasadda lagu kala qaarayo carruurta iyo waalidiintooda soo galootiga. xubno magac leh oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in Trump markii uu booqday aqalka Capitol Hill ee golahaasi ku yaalo galabnimadii Salaasadii uu muujiyey inuu u heelan yahay inuu saxeexo uun sharcigii golaha Koongareeska ka soo baxa. markii horese waxa uu ku adkaysanayay inuu meel marin doono isbedelo saliya baara oo ay ka mid yihiin in goluhu meel mariyo lacag lagu dhisayo gidaar lagu kala xidho dalkiisa iyo Mexico. laakiin siyaasaddiisa dal iyo dibadba aad baa looga dhaleeceeyey. golahuna waxa uu haatan wuxuu ka doodayaa sidii meel dhexe la isugu iman lahaa. qaar ka mid a mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa madaxweyne Trump ku qayliyey markii uu aqalka soo galay. intii ay socotay doodu ayaa xubnaha dimuqraadiga ahi waxay warfidiyeenka u sheegeen in Trump ay ku yidhaahdeen siyaasaddaada degdeg u jooji. haweeney ka tirsan Koongareeska Michelle Lujan Grisham la yidhaahdo ayaa warfidiyaanka iyadoo la hadlaysa waxay tidhi madaxweynuhu waxa uu argagax gelinayaa dalka. waxa uu argagax gelinayaa carruurta iyo waalidiintood. arrintan waxaa lagu tilmaami karaa tacaddi ka dhan ah carruurta. waxaana si ula kac ah u fulinaya madaxweynaha Mareykanka. waxaa qasab ah in la joojiyo.
haddaba maxay tahay arrintan ku salaysan carruurta laga reebayo waalidiintooda muhaajiriinta ee hadhaysay maraykanka oo gebi ahaantiiba su-aashaas iyo kuolaba waxaanu weydiinay garyaqaan amiin haaruun oo u warramaya waryaha b b c da maxamed xaaji xuseen shiine. dadka soo galootiga magangelyada codsanaya maraykanka soo galaya ka soo galaya xuduudda koonfureed ayaa waxay ku imaanayaan iyagoo qoysas ah oo hooyadii iyo aabbihii iyo carruurtii ka kooban marka waa loo diidayay dadka waaweyn waa la qabanayaa maxkamad baa la geynayaa waayo waxaa loo adeegsanaya sharci ah in ay tahay dembi inaad waddanka soo gasho oo waxaa la geenayaa macnaha xabsi caadiya la geenayaa qofkii halka ilmihii yaraa marka ee la socday waalidka waa laga soo reebayey marka waxaa dhacday inay say ma xukuumaddu kolba ilmo uga soo reebayso waalidkiisa kumanaan kun oo carruura ay isugu keentay meelo ka mid a xuduudka waxay isugu yimideen gacantii dawladda oo dhammaantood waalidkood xabsiyo loo diray maxkamadna ku socoto marka maadaama sharciga maraykanku qeexayo inaan carruurta la maxkamadayn karin xabsina la geyn karin waxaa dhacday in ay isku dayo dawladdii inay meel ku ururiso oo isu keento tiina waxay dhalisay maaragtay arrimo xun bay keentay oo waxaa dilaacay qaxooti carruura ka dilaacay macnaha meelaha qaarkood taasoo markii dambe kaleetay in meel qaadaba xataa loo waayey oo ilmihii la isugu geeyo meelo horey u ahaan jirtay dukaamaha waaweyn laga adeegto sida Walmart oo kale ama xiriir ciidan ku yaala xuduudka kale laakiin hadduuba sharci yahay oo waddanka Mareykanka sharci uu ka qoran yahay in maatay sidaas carruurtana aan la maxkamadeyn karin waalidkana in la maxkamadeeyo uu yahay markuu waddanka soo galo maxay sharci dejiyaasha Republicanka iyo Dimuqraadiga uga qaylinayaan runtii waxay uga qaylinayaan dadkan soo galaya horta marka hore waxaa la isku hayaa inay yihiin dad dambi galay oo maaragtay in xabsi loo dira ay tahay in kale sababtoo ah dadkani waxay codsanayaan magangeliya maraykanka weydiisanayaan waxay iska soo dhiibayaan xuduudihii furnaa ee maaragtay la soo mari jiray ee dadka waddamada isaga gooshaya mari jireen bay iska soo dhiibayaan iyagoon wadaynin sharci dalku gal kadibna codsanaya maaragtay magangeliyo oo dhahay anigu meelaan ku laabanna ma hayno waxaan doonaynaa dawladda maraykanka inay magangeliyana siiso sidaas daraaddeed dawladihii hore ee ka horreeyay tan way dhici jirtay arrintani arrin socotay bay ahayd laakiin hadda waxaad moodaa dawladda madaxweyne Donald Trump in uu leeyahay waxaan meel marinaya oo fulinayaa sharciga dalka qof iska soo gali karana male dadkii kale ee ka soo horjeeday ee dimuqraadigu waxay leeyihiin carruurtana aad loo isticmaalay oo leeyahay maartay carruurtan oo iyagoo ooyayo oo aad u qaab daran baa la soo saarayaa xataa ilmihii yana oo qaarkood ay maartay bilow dhalan yihiin looma ogola xataa shaqaalaha dawladdu inay kor u qaadaan oo gacanta ku qabtaan waxaa leeyahay ma taaban kartaan korka ka ilaaliya cunto siiya laakiin yaan la taabanin laakiin si kasta oo loo codsaday oo hataa maantada 4 gobol oo waddanka Mareykanka kamid ah oo laba dimuqraadigu ay xukumaan iyo laba Republicanku ay xukumaan ay ka codsanayaan madaxweyne Trump inuu arrintan si ku sameeyo madaxweyne Trumpna wali ku adkeysanaya in aanu ogolaanayn waddankiisa inuu xero qaxooti noqdo wuu ku adkeysanayaa madaxweynuhu wuxuu leeyahay markii horeysay uu soo galay wuxuu ballan qaadayay in uusan waddankani wuxuu isu bedelay buu leeyahay waddan qaxooti buu isu bedelay oo qof walba qaato xuduudihiisu furan yihiin buu ku doodayaa saa daraadeed isagu markii uu la doortay wuxuu dhaar ku maray in uusan ogolaan doonin in maaragtay dadku iska soo galaan xuduudahan uu adkeyn doono ciidamo uu geyn doono waa kii dhihi jiray maaragtay waxaan ka dhisayaa derbi dheer baan ka dhisayaa xadka u dhexeeya Mexico iyo dalka Mareykanka marka isagu wuxuu ku adkeysanayaa oo dadka isaga taageeray ee u codayayna ay jecel yihiin in waddankan laga joojiyo dadkan ku soo qulqulaya Latin America gaar ahaan ka imaanaya tiibu isagu ku adkeysanaya laakiin sharci cusub oo la soo dajiyay ma jiree sharcigani markii hore waqti ku qornaa laakiin priority-ga ama waxa ay ahmiyadda siinaysa xukuumaddu ayaa mar walba waxay ahayd markii hore qofka hadduu sharciga waddan ku joogo dambina leeyahay dadka dambiilayaasha ah iyo dadka dhibku amaartay amniga Mareykanka ayaa la target garan jiray haddana waxaad moodaa xukuumaddani qof walba oo sharci waddan ku lahayn in ay u siman yihiin oo target garanayso aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo warramaya wariyaha b b c da maxamed xaaji xuseen shiine waa tahay dhegeystayaal warar kaloo maraykanka ku saabsan oo ah inuu ka baxay golihii xuquuqal insaanka ee qaramada midoobeyna waa inoo soo socdaane bal haatan xeryaha qaxootiga ee Kenya maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta qaxootiga oo sanad walba la xuso haddaba waxaa jira qaxooti badan oo dalalkii ay ka qaxeen dib ugu noqday waxaa ka mid ah dadkaas kuwa Soomaali ah oo ku jiri jiray xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka Kenya markii ay Soomaaliya ku noqdeen waxay qaarkood bilaabeen nolol cusub oo ka duwantii qaxootinimo hase yeeshee dhibaatooyin ay muteen ayaa jira oo ay dalkooda kala kulmeen oo aan yarayn waxaa ka mid ah dadkaasi Madiina Jimcaale oo qaraxii bishii Oktoobar ee kal hore ka dhacay iska soobe magaalada Muqdisho ku weyday 2 wiil oo dhashay haatana qoyskeedii dib ugu noqday xerada Kakuma oo ay markii hore ka guureen Bashiir Maxamed Caato oo dhawaan socdaal shaqo ku tagay Kakuma ayaa la kulmay qoyskaas oo warbixintan inoo haya waa qoys qaxooti ah oo xilli casar gaabad ah ku sheekaysanaya guri cooshad ka samaysan oo ay ku leeyihiin xerada qaxootiga ee Kakuma ee waqooyiga galbeed ee waddanka Kenya
The repatriation process will start. We will share the report with the United Nations High Commission for Refugees. bartamihii sanadkii 2014 ay ahayd markii dowladda Kenya oo kaashanaysa hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan dhanka qaxootiga UNHCR ay ku dhawaaqday inay bilaabayso dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga waddanka Kenya. Tallaabadaasi oo dad badan oo qaxooti ah ay ka biyadiideen ayaa dadka qaar waxay u arkayeen mid wanaagsan oo dib ugu noqoshada dalkooda ay u horseedi karto nolol hor leh. waxaana intii ka dambeysay dad badan ay bilaabeen inay siiskooda isu diiwaangeliyaan oo ay ku noqdaan Soomaaliya, taasi oo nolol hor leh u horseeday qaxooti inta badan dalkooda ka maqnaa 10 sano. balse dib u noqoshada qaxootiga qaar oo ku hanweynaa in nolosha qaxootiga ay ka baxayaan ayaa waxaa markii dambe ay door bideen inay dib ugu laabtaan isla xeriyada qaxootiga ee ay ka tageen. mir daboolana aniga meel la iga qaaday. Madiina Jimcaale Afrax oo ah hooyo Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah xerada qaxootiga Kakuma ayaa sanadkii 2016 waxay go'aansatay inay dib ugu laabato Soomaaliya. waxaana aan wax ka weydiiyay dhaawac iga muuqday jirkeeda. qaraxi soobe ee lambar 4 oo ugu soo gaaray 2 wiilna waan ku waayay. mir daboolana aniga meel la iga qaaday. alxamdulillah shukr ka bacdina miirkaygaan iska helay. muslina ii gargaaro qaaday. qaxootiga inaan ka tago waxa ugu qasabtay gabar aan dhalay ayaa la dilay, la dhibaateeyay. qaracanka aan ku qaracmo daraadeedan repatriation u qoray. dhibaato weyn oo habeenkii seexa karnaa ilaa hadda qaba. Madiina oo u muuqatay qof argagaxsan ayaa waxay dib u la soo laabatay caruur ay dhashay iyo kuwa ay sii dhaleen oo gaaraya 20 qof. nolosha adag ee qaxootiga oo dad badan ay aad uga sheegtaan ayaa Madiina waxay imika u muuqataa mid door biday oo waxay rumaysan tahay in go'aankii qaadatay dhowr sano ka hor uu ahaa mid aan waxba ku soo kordhin qoyskeeda. waxaana wax ka weydiiyay bal waxa u qorsheysan iyada iyo qoyskeeduba. wax ay qorsheysan ma jiraan balse qadarta Rabbiga iska leh. wixii Ilaahay ii qoro ama geeri ama meel fiican ama nolol iska caadi ah wixii Rabbi ii qadaro ayaan qabaa. qoyskan ayaa waxaa laga dareemi karaa inay ku nool yihiin nolol adag. guryo quman ee halkan kuma haystaan. waxaana ii muuqda ilmo yar oo biyo arooraya. sidoo kale meel aan sidaas iga fogeen waxaa fadhida hooyada qoyskan oo u muuqata mid fikiraysa. hay'adaha gargaarka iyo maamulada ka jira Soomaaliya oo marka qaxootiga ay dib u noqdaan ka caawiya sidii ay ula qabsan lahaayeen nolosha ayaa u qaabilsanaa hay'adda UNHCR ee arrimaha taakuleynta qaxootiga Serka Sujam. waxaan wax ka weydiiyay bal waxay ka yeelayaan qaxootiga dib loogu celiyo Soomaaliya ee haddana dib ugu soo guryo noqda xerooyinka qaxootiga. heshiiska dib u celinta dadka doonaya inay dalkooda ku laabtaan ayaa dhigayay in dhammaan dadka doonaya inay dalkooda ku laabtaan in loo sheego waxyaabaha ay wajihi karaan, sida in haddii ay dalkooda ku laabtaan ay waayayaan aqoonsigoodii qaxootinimo. haddii ay dhacdo marka inay dalkooda ku laabtaan oo ay haddana ka soo laabtaan oo ay soo galaan Kenya, waxaa loo diiwaangelinayaa sida dad cusub oo hadda un yimid, oo waa in ay soo maraan nidaamkii isdiiwaangelinta oo dhan ka oo ay ku jirto in go'aan laga gaaro dalabkooda qaxootinimo. taana waxaa samaynaysa hay'adda qaxootiga u qaabilsan dowladda Kenya, which is done by the RUS Refugee Affairs Secretariat by the government. xilli qaxooti badan oo dib ugu laabtay Soomaaliya ay la qabsadeen nolosha horumar dhanka nolosha ahna ay ku talaabsadeen ayaa waxaad moodaa intaasi aysan u suurtagelin hooyo Madiina Jimcaale oo nolol ay samaysatay iska badaaye qaar ka mid ah awlaadii ay dhashay ku weeday amni darrada ka jirta Soomaaliya. Bashiir Maxamed Caato, BBC, xerada qaxootiga ee Kakuma. aad buu mahadsan yahay Bashiir oo warbixinta ay nala socodsiinay. dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 7:15 BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay dhegeystayaal bal haatan aynu ku noqono wararkii Maraykanka ayaa ka baxay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo waxa uu sheegay inuu ka biyadiiday arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin in goluhu si joogto ah oo xad dhaaf u dhaleeceeyo Israa'iil. danjiraha Maraykanka oo fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay inuu goluhu ku dhaqmo siyaasad eexa oo ka dhana Israa'iil. wararkii u dambeeyay ee BBC-du arrintaa ka qortay waa kan Xasan Geele oo inoo soo koobaya. waa tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaado maamulka madaxweyne Obama ee uga baxayo nidaam caalami ah, waxaana laga yaabaa in arrintani ay ka caraysiiso dadka doonaya in Maraykanka uu badbaadiyo isla markaana uu garab istaago xuquuqda dadyowga caalamka. safiirka Maraykanka oo fadhiya Maraykanka Nikki Haley ayaa go'aanka uu Maraykanka uga baxayo golahan xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxay uga dhawaaqday magaalada Washington.
waxayna sheegtay in maraykanka uusan haysan wax kale oo uu sameeyo balse ay tahay inuu isaga baxo golahani xuquuqul insaanka maadaama bay tiri la iska dhiga tiray isbedelo la doonayay in lagu sameeyo golahani. muddo dheer ayaa golaha xuquuqul insaanku ilaalinayay dalalka ku tunta xuquuqda aadanaha oo uu noqday meel siyaasad ahaan la isugu eexdo. waa wax laga xumaado inay haatan caddaatay in aan baaqayagii dhegba jalaq loo siin. kuwa ku tunta xuquuqda aadanaha ayaa weliba loo doortaa golaha oo ku jira. dalalka adduunka ugu xun ku tumashada xuquuqda aadanaha laguma dhaliilo. goluhuna wuu siyaasadeeyaa arrimaha oo dalal sooyaalkooda xuquuqda aadanuhu togan yahay ayuu eed saaraa si uu indhaha uga weeciyo kuwa ku tunta xuquuqda aadanaha. markaa sidii aannu sannadkii horeba u sheegnay, haddii waxba isbedeli waayeen, maraykanku wuxuu si rasmiya uga baxayaa golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Nikki Haley ayaa ku eedeysay golahani xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay munaafiqnimo la xiriirta arrimaha xuquuqul insaanka, gaar ahaan qaar ka mid ah wadamada xubnaha ka ah, iyadoo ay tiri aadna loo dhaliilayo Israa'iil. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo oo shirkaasi jiraadisna ka qayb galay ayaa sheegay in golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay uu ku guuldaraystay inuu ka soo baxo shaqadii loo igmaday. shaki nagagama jiro in yoolka goluhu ahaa mid fiican, laakiin maanta waxaa habboon in aan si daacada runta u sheegno. golaha xuquuqul insaanku waa mid ku liita ilaalinta xuquuqda aadanaha. waxaaba taa ka sii daran in golaha xuquuqul insaanku noqday dalalka sida ugu xun dunida ugu tunta xuquuqda aadanuhu si munaafaqad bilaaxishooda ay iskaga indhasaabaan tacadiyadooda oo ay qaarkoodna golaha laftiisa xubno ka yihiin. golahani oo la dhisay sanadkii 2006 isla markaana uu saldhigiisu yahay magaalada Geneva ayaa lagu dhaliilay in wadamo qaar oo shaki la gelinayo diiwaankooda xuquuqul insaanka ay xubin ka noqdaan golahani. hase yeeshee howlwadeennada arrimaha xuquuqul insaanka ayaa tallaabadu haatan Maraykanka qaaday waxay u arkaan mid waxyeelayn doonta dadaalada la doonayo in lagula socdo arrimaha xuquuqul insaanka isla markaana wax looga qabto dhibaatooyinka loo geysanayo xuquuqul insaanka guud ahaan caalamka oo dhan. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa afhayeen u hadlay waxa uu sheegay in ay fiicnaan lahayd in Maraykanku uu xubin ka sii ahaado golahaasi xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. madaxa guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Zayd Racad Al Hussein ayaa ku tilmaamay ka bixitaanka Maraykanka uu isaga baxay golahani mid laga xumaado haddii buu yidhi aysan ahaynba war la yaab leh. hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa isla markiiba taageero u muujiyey tallaabada uu qaaday Donald Trump, waxaana uu Twitterkiisa soo dhigay fariimo uu ku ammaanayo tallaabada uu qaaday Maraykanka. mahadsanid geelle. haddaba dhegeystayaasha BBC-da qaar ka mid ah ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay warkaasi, waxaana ka mid ah saxardiid xaashi ardaale oo jooga magaalada Boorama. waxaanu leeyahay tallaabadaasuu Maraykanku kaga baxay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waa mid aan waxba soo kordhinaynin, waayo marka horeba Maraykanku ma ilaalin jirin xuquuqul insaanka. iminkana waxaabuu fursad u helay inuu ku tunto xuquuqda dadka iyo dalalka uu ka xooga weyn yahay, ayuu yidhi saxardiid. maxamed deeq dowlad oo jooga magaalada Jigjiga ayaa isaguna waxa uu leeyahay Maraykanka ka baxay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inuu ka baxaa waxay muujinaysaa inuu maamulka Trump aad u naxariis daran yahay, waana tallaabo uu ku doonayo inaan hadhow golaha xuquuqul insaanku waxba aanu u raacanin maamulkiisa, ayuu yidhi. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da oo aragtidooda ka soo dhiibanayay tallaabada uu Trump kaga saaray dalkiisa golihii xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. bal haatanna Jigjiga dhegeystayaal. dhegeystow masaajidada ayaa caadiyan sida aynu wada ognahayba dadka muslimiinta ahi waxay u tagaan inay ku cibaadaystaan oo ay salaad ku tukadaan, balse magaalada Jigjiga sida magaalooyinka waaweyn ee kaleegayga Soomaalidaba waxaa ka jira dad masaajidada dana kale u taga. ma aha dadkaasi inay u dawarsi tagaan oo masaajidada gudahooga ay ka tuugsadaan, hase yeeshee dantoodu waxay tahay inay kabaha dadka jamaca ee ku tukanaya masaajidada ay xadaan oo ay kala tagaan. arrintaasi ayay aad uga qayliyeen dadka ku nool magaalada Jigjiga. sheekada waxaa Jigjiga inooga soo diray wariyaha BBC-da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam. axmed gurey wuxuu ka mid yahay masaajidada ku yaala magaalada Jigjiga. aadaankan dhagaheenna ku dhacayana waxay dadka muslimiintu maqlayeen in ka badan 1430 sano. haddaba aadaankan oo macnihiisu yahay weynaynta ilaahay, tawxiid iyo u kaalaya salaada naxariista u kaalayay ayaa mar alla markay dadku maqlaan si halhaleela ay masaajidka u soo galayaan.
waxaana ii muuqda dad isdaba socda oo midba mar si tartiiba uga soo gelayo. inta badan bini'aadmiga adduunka ku nool meelaha loogu talagalay in lagu cibaadaysto waxay u hayaan qadarin iyo xushmad aad u badan, balse waxaa jira dad si qaldan oon wanaagsanayn quutulyoomkooda masaajidada uga raadsada. cabdiqaadir axmed raage waa mu'adimka masaajidkan Axmed Gurey. kabaan bay xadaan, kabaan bay ilaashadaan. qofka markuu masaajidka soo galay eeganayaan kabaha inuu kaba cusub xidhan yahay eeganayaan. markuu kabaha ay arkaan way eegayaan meeshuu dhigayo way la sii baxayaan. qofkii markuu salaada ka soo baxo meeshiisii wuu ka eegayaa kaba uu waayaya markaga dambe. arrintaas waxaad u qabateen oo u xidhan oo maxkamad loo geeyey ma jirtaa? may wax saas ma jiro wax maxkamad loo geeyey. qaar la qabtay way jiraan, intuu boolisku kaxeeyey dee uu xidhay uu soo daayay way iska jiraan. marka arrinta halkoodii bay ka bilaabayaan mise markii la qabtay ee booliska loo geeyo xogaa way ka xidaaraysanayaan? may xaggoodii may ka bilaabeen markay soo noqdaan meel dadka may iska eegayaan halkoodii may kasii bilaabeen. marka hadday arrintaasi jirto soo ma jiraan dad aad taqaanaan oo markuu soo galo odhanayo waa ninkii kabaha xadi jiray? may inta badan lama arkaya. dadkaasi waa dad isqarinaya, jamac unbay isku soo ekeysiinayaan kadibna way qaadanayaan kabaha. dhibaato intee lag bay arrintaas masaajid ku haysaa? dhibaato aad u badan bay ku haysaa masaajidka arrintaas. dad safar ka yimaada jiroon jigjiga yimaada inta meelo kale ka yimaadeen markaas masaajidka kusoo tukadaan kabahoodiina laga xaday waxu kaba siistana waayaa jira. marka qofkaas hadda kadib masaajidkaas ka cabsan mahayo oo odhan mahayo dadka war masaajidkaas kabaha lagu xadaa iska ilaaliya? aada uga cabsanayaa. qiso ka dhacdaa jirta masaajidka sanadkii hore. oday baa ka yimiday xagga afdheer buu ka yimiday, duurkii buu soo tukaday kabaa laga xaday, haddana casarkii buu soo tukaday kabaa laga xaday. salaadii iyadoo lagu jiru istaagay xaggaasuu kabaa dhigtay uu kacay kabihiisii u waayey markaasuu qayliyo. muxuu ku qayliyey? wuxuu ku qayliyey masaajidka waa maxay waxa jooga buu yidhi. aad buu u yaabay. haatan waxaan taagnahay albaabka masaajidka dadku ka soo galo. wiil dhallinyaro ah ayaan la taagnahay. sababta aan bacdan ugu ridayo waa si ay iigu fududaato inaan anigu iska hordhigo oo masaajidka nadaafadiisiina ay u ilaashanto kabahayguna ay u ilaashamaan. ma waxaad ka baqayso kuhandadayaa jira? haa, waxaa jira dad kabaha qaata masaajidka markaad soo gashid eed xaggaa dambe kabahaaga iska dhigatid dad kaaga dambeynaya kabahaga qaadanaya ayaa jira. haatan waxaan la joogaa sheekh ka mida culimmada masaajidka Axmed Gurey. bal waxaan sheekh rabaa inaan ku weydiiyo, markuu qofku la halgamayo kabihiisa oo keliya ah intaan lag bay khushuucdii salaada ku keenaysaa oo dhibaato ah? horta magacayga saddexan xasan shukri sahal baa laydhahaa. hadda inta ugu badan dadka kabaha hadda bacbaa loo sameeyey. inta badan hadda dadku bacaasi ku ritaan kadibna hoortooday dhigtaan. marka khushuucdoodii inay ilaashantay iga u badan tahay. yacni kabihii way ilaashameen oo bacdii bay ku ilaashameen kadibna khushuucdoodii baa dadka ilaashantay miya? haa, saasay ka dhigan tahay. berigii hore sanaaduuq baa lagu ridan jiray kadibna sanaaduuqdaasayna dadkuna ayna tuugta uga faa'idaysan jireen inay kabaha ka dhex qaataan. haddana bacahaasay dadku inta badan ku ritaan. inta badan hadda kuwaasaa bacaha la isticmaalaa. waa tahay codkaasi wuxuu dambeeyey warbixintii oo cabdinaasir xikam ka soo diray magaalada jigjige. bal haatana wararkii cayaaraha dhegaystayaal. xulka qaranka ruushka ayaa ku guulaystay ciyaartii labaad ee tartanka koobka adduunka, taasoo u suurto gelinaysa dalkaas martigelinaya tartanku inuu u sii dhowaado ka mid noqoshada xulalka u soo baxaya wareegga 16. guushii uu 3 iyo halka kaga adkaaday xulka Masar ayaa shacabkii ku daawanayay ciyaarta garoonka St Petersburg iyo dalkoo dhammiba aad ugu dabaaldegeen. ruushku uu soo baxaya, Masarse way hadhaysaa haddii Sacuudigu uu galabta ka badin waayo dalka Uruguay oo gorodaystarayaan. ciyaartii taa ka horreysay ay goroda isku dareen Poland iyo Senegal waxaa guushu ku raacday dalka Senegal, waxaanu noqday xulkii ugu horreeyay Afrikaana ee badiya ciyaartiisii koowaad. waxaanay dadka reer Afrika oo dhammi aad ugu damaashaadeen guushaas oo Senegal ku raacday 2-1. galabtana waxaa wada ciyaari doonaa kulamo xiise leh oo waxaa wada ciyaari doonaan idhaahdee Uruguay iyo Saudi Arabia, Portugal iyo Morocco, Iran iyo Spain iyaguna goroda ayay istari doonaan. waa taa dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laantii af Soomaaliga ee BBC bal haatana xagga iyo Suuriya. hablaha yaryar ee 12 jirada ah ee ku dhaqan dhanka koonfureed ee magaalada Dimashq ee dalka Suuriya ayaa waxaa laga mamnuucay inay iskuulada dhigtaan markii ay halkaasi gacanta ku dhigeen mitidiinta kooxda la baxday dowladda Islaamku. hase yeeshee intii uu socday dagaalkii halkaa ka oognaa waxaa 2 hablood oo yaryar u suurto gashay inay si xeeladaysan ku weydaartaan maleeshiyaadkii hablaha u diidi jiray inay iskuulada dhigtaan. Caroline Hawley ayaa warbixintan soo dirtay. Cabdiqaadir Yuusuf ayaa soo jeedinaya.
iskuulkan oo ku yaalla magaalada dimashik ee dalka suuriya waxaa dhammaaday imtixaanaadkii ardayduna waxaa wejiyadooda ka muuqda farxad iyo raynrayn balse waxaa ardaydan ka mid ah koox gabdhaha oo naftooda khatar u geliyey sidii ay wax ku baran lahaayeen waa sheeko cajiib ah gabdhuhu waxa ay isticmaaleen teknolojiyad casri ah si aysan u ogaanin dagaalyahanada kooxda isku magacaawday dowladda islaamka oo saldhig ku lahaa meel aan sidaa uga fogayn xaafaddii ay degganaayeen magacaygu waa zaliim sulaymaan da'daydu waa 15 sano jir waxaana laga mamnuucay inaan aadno iskoolka marka waxaan iska dhigi jirnay dad u socda tukaamaysi kadibna waxaan aadi jirnay iskoolka maalin kasta waraaqa ayaan soo qaadan jirnay si aan casharada ugu qorno marka waraaqaha iyo qamaarada iskoolka waxaan ku qarin jirnay kabaheena buudka haddii ay arkaan waraaqaha waa ay jexjeexayaan faatuma oo iyana 14 sano jir ah ayaa waxay sheegaysaa in dagaalyahanada daacish ay saaxiibteed ku arkeen iyadoo sidata waraaqa ay cashar ku qoran yihiin oo ay kala timid iskuulka sidaa darteed ayayna u garaaceen They made us wear the niqab and banned us from carrying any books or paper. waxay nagu qasbeen inaan xiranno indhashareer waxay naga mamnuuceen inaan qaadanno buugaag ama waraaqo ay wax ku qoran yihiin iyo wax kastoo ku saabsan iskool xataa waxa ay jajabin jireen qalimaanta iyo qalab walboon ku baranno iskoolka They even used to break pens and rulers. gabdhuhu markii dambe waxay isticmaaleen teknolojiyadda casriga ah ee qarniga 21aad si ay uga guulaystaan daacish sida dhalinyarada kale ee dunidaba waxa ay isticmaaleen telefoonkooda gacanta ee smartphone-ka loo yaqaan Whoever made it to Yalda gabar kasta ee ay u suurto gasho inay tagto iskuulka ayaa waxa ay aaladda WhatsApp-ka ku soo diraysaa casharadii maalintaasi la qaatay si kuwa aan fasalka joogin ay uga faa'iidaystaan duruustii dhaaftay waxa aan sawirro ka qaadnaa casharada uu macallinka sabuuradda ku qoray kadibna waxaan la wadaagnaa asxaabtayada kale and shared it via a social media group. warbixintii Caroline Howley ayuu codkaasi ugu dambeeyay dhageystow daraasad cusub ayaa dhawaan waxa lagu ogaaday in dadka ku dhasha isla markaana lagu soo barbaariyo ee ku kora dhulka joogiisa uu sareeyo ay suurtagal tahay inay yeeshaan gacmo gaagaaban waa mid xiiso leh geela ila fadhiya geelow maxaa la yidhi axmedow daraasaddan waxaa samaysay jaamacadda Cambridge waxaana la leeyahay dadka ku nool dhulka jawigiisu ama ku dhasha isla markaana ku barbaara dadka jawigiisu sareeyo ama joogiisa yiraahdo sareeyo in ay yeeshaan dhudhumo gaagaaban marka jaamacaddu waxay leedahay daraasaddan waxaa laga sameeyey tusaale ahaan buuraha Himalayas ee Nepal marka waxaa la ogaaday dadkaasi intooda badan meesha ku koray ee ku dhashay inay leeyihiin dhudhumo gaagaaban sidoo kale laakiin waa dhameystiran talow jilbahooda ma gaadho gacmooda taasi dabcan in la sheego way fiicnaan lahayd laakiin ilaa haatan laguma sheegin waxaa kaloo hadda kor laga sameeyey Peru ayaa laga sameeyey daraasad noocaasi oo kale ah marka waxaad moodaa arrintan inay tahay mid isla socoto waxayna khubaradu leeyihiin waxay soo bilaabataa markuu ilmuhu calool galayo ku jira uurka hooyadii maaha qofku markuu dhasho markii dhudhumada ay gaabanayaan anu xasano waxaaban u haystay dadku inay gaagaabtaan markay ku nool yihiin xeebaha dee cadaadiska badan ee magaranaysa u saaraya ha laakiin meel qabow u baxay dhulka qabowga ee buuraleyda gacmihi ha gaagaabtaan kolley waxbaa la isu dheelitirayaa annagu waxaana la socon ayaa jira dhir dhaadheer baanay lahayn baana siliyo meel ay goob ka gurtaan xasano uma haystin marka kolley waa suurtagal haddii la eego fikradaha dadka qaar ay soo jeedinayaan sida khubarada qaar ay sheegayaan aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu xasan cali geele